munaasabad ballaaran oo ka dhacday hotel City Palace ee magaalada Burco ayaa lagu shaacinayay musharaxnimada Mukhtaar Cabdi Maxamuud Baaryare oo u taagan doorashada golaha deegaanka degmada Burco waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay barsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer madax dhaqameed haweenka gobolka Togdheer iyo dhalinyaro ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay uqaal iyo marti kala duwaneed ee munaasabadaasi ka soo qayb galay iyagoo xusay in aqoon-yahan Mukhtaar Cabdi Maxamuud yahay musharaxii ugu munaasibsanaa ee ay u soo xiraan doorashada golaha deegaanka degmada Burco ilaahay baa leh mudnaanna waxa leh dadkan wanaagsan ee sharafka leh ee xafladan sidan loo soo agaasibay u yimi ee sidii la arki jiray sibiliinka iyo ilaalinta iyo anshaxa iyo dhaqanka intaba ilaalinaya mahad ilaahay baa leh mudnaan idinkaa leh waa idin mahad celinaynaa haddii aan odayga reerka ahay waana idin ducaynayaa waxaan idinku ducaynayaa ifkana bilraaxa aakhirana filjanna waana la shaaciyey waa musharaxa da'da yar leh ee u sharaxan golaha deegaanka degmada Burco gobolka Togdheer Dr. Mukhtaar Cabdi Maxamuud Baaryare oo ka sharaxan laba meelood oo waaweyn sida horeba loo shaaciyey laba meelood oo waaweyn ka sharaxan reeraha shanta ee Bahaa Axmed la yiraahdo u sharaxan oo golaha deegaanka ee Burco uga sharaxan una sharaxan dhammaan dhalinyarada gaashaanbuur ee gobolka Mukhtaar Cabdi Maxamuud Baaryare waxa diyaanu wax ka sheegno waxaan isleeyahay waxa ilaahay idinku guuleeyay ama idinku ilaahamay ninkii ugu munaasabsanaa ee mansabkan loo dooran lahaa in ilaahay dariiqa toosan uu ku hagaajiyo himiladiisa weeriyadiisa wanaagsanna insha Allah bismillaahi kariim uu ku guuleysto dalkiisa iyo diintiisa iyo gaashaanbuur iyo dawladda Soomaalilandba kii hogaamiya ilaahay ka dhigo marka hore waa nin dhalinyaro ah oo daayar marka xigta waa aqoon-yahan waa nin aqoon-yahan ah dhinac walba markii aanu ka eegnay waa nin aanu ku aaminsanahay xilka uu isu soo taagay aanu boqolkiiba boqol ku aaminsanahay waa nin u qalma waa nin sida runtii shiraban min shiraban kulli anaga xaqeega waa ka shiraban yahay idinkuna waad nala arki doontaan insha Allah ta'ala marka waxaan rajaynayaa biidnillaahi kariim xildhibaan aynu qaranka soo saarno oo ku aamino oo golaheena deegaanka iyo degmadeena Burco wax badan ka bedela inuu noqdaan biidnillaahi kariim rajaynayaa waxaan uga maqnaati kacanaa inuu yahay nin dhalinyaro ah oo karti badan oo firfircoon oo maaragtay la yimi hal abuur waxa weeye saaxiibadii ay uga maqnaati kaceen marka koowaad waanu ducaynaa waxaan leenahay ilaahay ha ku baarigo allaana Mukhtaar abti anigoo ku hadlaya afka gobolka Togdheer gudoomiyihii gobolka Togdheer waxa la adeekiina waa odayday maantiina waa habar waxaan leeyahay abti muruq iyo maal iyo cod waan kugu garab taaganahay insha Allah waxa keenteen inaan dhalinyaro ah aqoon-yahana xaqiiqatan sharaf iyo karaamo badan inaan ka ahmiyadiisa ilaaliya sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaaliya waa inaan ka wayna soo saartaan mar walbana waxa soo saaraan la hadlayaa waa dhalinyarada iyo hooyooyinka Mukhtaar waxaan leenahay Mukhtaar Cabdi Maxamuud soo dhawow waan ku garab taaganahay kulli anaku waxaanu nahay haweenkii gobolka boosaska waan idin banaynay daayartaanu banaynay ritaayarkuna wuu iska tagayaa aniguna markhaati baan ka ahay Mukhtaar nin dhalinyaro aqoon-yahana mutaadaba wanaagsan oo sharaf leh inuu yahay waan la cuganay insha Allah marada soo bandhigteen waxaan u baahan tahay Burco isaga oo kale inay soo wada cugtaan gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay musharax Mukhtaar Cabdi Maxamuud Baaryare gobolka Togdheer baan u sharaxanahay wadan ama hamigan aan anigu deelaymi magaranaysaa la igu garab galay ma aha mid magaranaysaa beelaha Bahaa Axmed oo qura ka soo maaxday waa mid maxaan ku dhahday ka soo maaxday dhammaan gobolka Togdheer daraf ilaa daraf xamil waayay way caaw halkan de mahadnaq baan aniga eeg wixii aanu la nimanayno markaan soo baxay insha Allah ta'ala indhahayaga ku arki doontaan waxaan kaloo ku soo koobayaa salaan isku duubni yeena caaw halkan ku kala hadhine de magaranaysaa aynu wada shaqeyno kuwii isku duuban meel hamigooda
mahad cali goodir star TV burco.